macallimadan waxay tiri waxaan macallim u ahaa hablaha fasalka shanaad ee iskuulka markastoo la gaaro aadaanka duhur waxaan joojin jiray sharaxa darsiga waxaan hablaha ka codsan jiray inay ka daba dhahaan mu'adinka aadaanka waxa kale xasuusin jiray in inta u dhaxaysa aadaanka iyo iqaamada la aqbalo ducada isla markaana ay ka faa'iideystaan waxay indhahayga soo jiitay gabar ka mid ah hablaha fasalka oo si la yaab leh ikhlaas ku dheehan yahay ilaahay u baryaysa mar walba maalin anigoo leelis ka saxay ayaan ku idhaahday adigu aad ayadii cajbisay waayo markastoon hablaha fursad u siiyo ay ku ducaystaan waxaan ku arkay adigoo u ducaysanaya si ikhlaas ku dheehan yahay kana faa'iideysanaya fursadda intii ka faa'iideysanayaan hablaha kale in ka badan waxay tiri alxamdulillaah markii aan ahaa fasalka koowaad ayaan ogaaday fadliga ay leedahay ducada la ducaysto inta u dhaxaysa adanka iyo aqamka intaas kadib waxaan noqday qof ku dadaasha ducada xilligaas gaar ahaan duco kaliya waxaan weydiiyey maxay tahay ducadaasi waxay igu jawaabtay hooyaday markay dhashay cid kale ma aysan dhalin imkana waxaan jiraa 13 sano waxaana ka masiira hablaha saaxiibaday ah oo la sheekaysanaya hable ay walaalo yihiin si jacayl ku dheehan yahay sidaas laajiligeed ilaahay waxaan ka baryaa inuu nagu irsaaqo gabadh markastoo hooyaday aragto waxay ugu tiraahdaa ilaahay noo bari inuu walad nagu irsaaqo amase inan waayo inan weynu haysanaa waa adiga sidaas laajiligeed ilaahay waxaan ka baryaa inuu nagu irsaaqo hooyaday darteed iyo sidoo kale gabar nagu irsaaqo aniga dartay sidoo kale inuu wiil nagu irsaaqo saanu walaalkii u noqon keli intaas kadib waxa ku yiraahday aamiin allaha ka aqbalo qisadii waan iska ilaaway gabadhana waxay u gudubtay fasalka 8aad maalin maalmaha ka mid ah anigoo dhex socda iskuulka waxay ila kulantay gabadhii si farxad ku dheehan tahay waxayna igu tiraahday waxaan kugu bishaaraynayaa hooyada shalay waxay dhashay 3 mataan ah 2 inan iyo gabadh si la yaab ku dheehan yahay ayaan iraahday subxaanallah gabadhaydii waxaan ka qaatay darsi lama ilaawaana saad ugu celcelin jirtay ducada iyo malaha wanaagsan waad ka meelaysan jirtay ilaahay barya idinku ku kalsoon inuu ilaahay idinka aqbalayo ducada sidoo kale ku dadaala waqtiyada ducada la aqbalo ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.